Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal soo dhawaada. Sida aan horay u soo wadnay barnaamijkan oo qaybta labaad ah, waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dhaqannada soo celceliyo infekshanada. Dhaqanka lixaad hadduu Ilaahay yiraahdo wuxuu noqon doonaa waqtiga galmada oo ka dheeraado waqtiga loogu talagalay. Taasna badanaa waxaa keeni karo ragga qaar ama dadka qaar oo isticmaalo daawooyinka, taasoo keeni karta waqti ka baxsan waqtigii qofka intii shaqada loogu talagalay in ay qaadato galmadii. Marka taasna waxaa fiican in laga waantoobo oo la iska ilaaliyo. Maxaa yeelay waxay keeni kartaa in infekshanadii ay soo laalaabtaan. Dhaqannada soo celceliya infekshanka waxaa ka mid ah qodobka tobaadna aan kusoo qaadan doonaa oo aad muhiim u ah inaad hormariso dhaqitaanka saxarada, inaad hormariso oo aad ka hormariso kaadida iyo xubinta taranka dhaqitaankeeda. Dhaqankaas oo keeni karo in infekshankii saxarada ku jiray aad u keento meeshii kaadida, taasoo keeni doonto in kaadida ay ku gubto, infekshonna uu ku dhaco xubintii taranka. Dhaqankan waxaa u baahan in aad loo baro ilmaha yaryarka ah, especially gabdhaha. Hooyooyinku waa inay baraan dhaqanka ah in ay gabadha iska hagaajiso oo ay nadiifiso xubinteeda taranka marka koowaad, kadibna ay dhaqdo saxarada iyo xubinteeda saxara mareenka. Dhaqanka sideedaad waa dhaqanka ugu daran oo keeno infekshanada weliba noocyada halista ah ugu horeeya AIDS-ka iyo STD wax loo yaqaano, waana sinada iyo gogol dhaafka dadka xadgudbay ay sameeyaan. Waxaan ognahay in diinteena ay xarimayso ayna ogoleen, sidoo kale waa xumaan marka loo fiiriyo caqliga saliimka ah, waana wax keeni karo infekshanka oo soo celcelin karo. Marka in laga taxadirana way muhiim waana mudan tahay. Dhaqanka xigo ee sagaalaad ayaa wuxuu leeyahay waa gubitaanka la gubo minka afkiisa ama lagu gubo dab iyo wax la mid ah. Dhaqankan wuxuu keenaa infekshano aad u daran. Haweenka qaarna aad bay u aafeysan yihiin, wayna jecel yihiin weliba gubitaanka, iyadoo aad arkayso inay ku leedahay waa lisoo gubayaa sababtoo ah ilma la'aan ay hayso. Waxaa laga yaabaa markii la gubo in ilma aan helo. Marka waa dhaqan dadka qaar ay aaminsan yihiin inuu fiican yahay, laakiinse infekshankiisa aad u badan yahay, dhibaatadiisana uu badan yahay. Dhaqanka tobanaad ee aan kusoo gunaanudeyno barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa dadka qaar ayaa waxay leeyihiin xaalado gaar ah kuwaas oo u nugleynayo in infekshankii uu soo noqnoqdo. Qodobkan waxaan doonaynaa inaan kaga hadalno dhowr bukaan oo infekshanka uusan ka bixin ama ku soo noqnoqdo. Qanjirka kaadi haysta oo barara ayaa wuxuu keeni karaa in infekshanka ragga uusan ka dhammaanin, maadaama dhaqanka ku celcelinta galmada faraha badan leh ay keento qanjirkaas inuu bararo. Marka waa dhaqan aad muhiim u ah in dadka ay iska ilaaliyaan. Maxaa yeelay galmada badan waxay keentaa qanjirkaas oo bararo. Marka xaalad gaar ah weeyaan.